السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalkiin cabdilcasiis kusoo dhawaada channelka suldaanka mashaariicda maanta iyo sheeko guul oo cusub. runtii maanta qofkan ka sheekeynayno waa qof raa'id ku ah caalam teknolojiya, waa qof aan caadi ahayn, waa qof ku tartamaan shirkadaha adduunka ugu waaweyn sida Twitter iyo Microsoft iyo waxyaabihii la mid ah in uu ka noqdo hogaamiye ama maamulaha guud shirkadooyinkaas oo kale. hadda channelka ku cusubtay subscribe dheh, gambaleelkana ku dhufo si wax kasta cusub ay kuu soo dhacaan. intaanan sheekada ayaan bilaabin waxaan jeclahay inaad like ku dhufatid videoga, leeno marka like aad ku dhufatid videoga waa shaaciya muuqaalkan dad badanna wuu gaaraya si ay uga faa'iideystaan ay dhiirigelin u noqoto dhalinyaradeena. ninkan waxaa la dhahaa Bishai, ninka ujeedin hadeer waa nin hindi oo basiit ah. wuxuu dhashay sanadkii 1972. wuxuu dhashay wadanka Hindiya, gaar ahaan magaalada la dhaho Chennai. familigiisa iska basiit ba ahaayeen. hooyadiisu qoraal bay ahayd, aabihiisu iska xamaali buu iska shaqaysan jiray. dad reer iska basiita weeye, isaga iyo walaalkiis ka yar, yani family iska basiita buu ka dhashay. almuhim ninkaas tacliimkiisu waa watay, waxbarashadiisu sii watay, heerka hoose iyo heerka sareba uu sii watay. markuu secondary-ga dhameeyay wuxuu ku biiray machadka technology-ga ee India ku yaala Chennai. dad badanna way garanayaan machadkaas haddii India wax ay ku bartaaniin. laakiin ninkan waxbarashadiisa caadi ma ahayn. wuxuu ahaa nin mar walba soo baxa number 1. waxbarashada aad buu ugu fiicnaa. wuxuu danayn jiray teknolojiyada iyo waxyaabaha buu aad u danayn jiray. markuu machadkii dhameeyay oo diblomihiisa dhameeyay waxa u soo baxday minxa Mareykanka, scholarship buu Mareykanka ka helay. scholarship-kan wuxuu ka helay jaamacadan caadi ahayn kama helin. wuxuu ka helay jaamacad Stanford Mareykanka. waad garanaysaa jaamacadaas waxay soo saartay kuwa caalamka teknolojiyada ugu sareeya oo dhan baa halkaa ka soo baxay. tayib markuu minxadii helay waxaa lagu yiri okay, tigerkaaga soo jaro oo kaalay, yani adiga bixinaysid, looligaaga adaa qaba baa lagu yiri. familigiisa anaguna iska faqiir bay iska ahaayeen. aabihiisa iyo hooyadiisa يعني waxay dhaheen wiilkeen waa inuu waxbarashadiisa sii wadaa. lidalik $1,000 ay meel dhigeen oo maaragtay lacagtii la ururin jiray meel la dhigan jiray ashan wax haday dhacaan si loo bixiyo. waxayna $1,000 run baan haysanaa, wax kale ma haysano. yarkii okay buu yiri, laakiin yani xagga aabahiisa iska miskiin buu iska, hooyadiis iska qoraal bay iska ahayd, wax bay qori jirtay. yani waa dareemisaan familigaas oo kale xoog waxay saareen inuu wiilka waxbarashadiisu sii wado. yani waxaa laga rabaa lacagtii maarse tigirkiisii, looligiisi baa laga rabaa, iyo waxaa laga rabaa lacagtii markuu halka joogo masaariiftii intuusan jaamacadda bilaabin masaariif baa loo baahan yahay. almuhim xil bay saareen adigu wiilkii waxaa la yiri ilaa inaa waxbarashadaada wadaa. Mareykanka u direen. markuu aaday jaamacadda Stanford, irka iska faqiir weeye, masaariiftiisa iyo wixiisa wuxuu siri bal waxaaga baro shaqee. marka aad buu wax u baran jiray. xataa muqaabaladiis marka la sameeyo wuxuu dhahay jiray aniga reerahayga hooyada iyo aabahay aad bay ugu soo tacbeen. mar walba marka muqaabalad loo sameeyo wuxuu dhahaa hooyo iyo aabo aad bay ugu soo tacbeen, tacabkoodana way heleen buu dhahaa. jaamacaddana waa dhigan jiray, shaqona waa shaqaysan jiray. almuhim heerkii baccalaureate waa dhameeyay, master buu ku sii daray. wuxuu ka soo baxay jaamacadda Stanford qaybta idaarat acmaal, business administration ayuu ka soo baxay. طبعا Mareykanka markay arkaan qof aad ku fiican waxbarashada, maskaxdiisa u furfuran oo dadaalaya oo waxbarashada niyad u haya, gacantiisa u qabtaan ma deeyaan. yani hadduu yahay qof ajnabi waxa ma yaqaan waxa qofka wax la laga faa'iideystaa. dhakab baa la siiyay. almuhim wuxuu dhowr shirkadood ayuu ka shaqeeyay. waxaa ka mid ah shirkadooyinku ka shaqeeyay shirkad caan ah oo istishaaraadka iyo talooyinka caan ku ah
la dhaho Magency. طيب markuu shaqayn jiray muxuu samayn jiray markuu shaqayn jiray wuxuu isku dayi jiray inuu shaqada wax siiyo isagana wax ka helo khibrado yacni mararka qaarkood markuu shaqayn jiray meelaha qaarkood markuu dareemo inuusan wax meesha ka heleen ama wax faa'iidaha meesha ka heleen غير lacagta ama isaga inaanu gudbin karin wax fiican meesha waa ka dhaqaaqi jiray yacni wuxuu jeclaan jiray inuu markuu meel ka shaqeeyo inuu noqdo qof mumayis ah wax siiya shaqadiisa iyo isagana wax qaata khibrad runtii qofka aan waan yaabina markaan dhahno yani isaga wax uu qaadanaya tab muxuu u siinaya shirkada isagoo ma lahan shaqaale uu ka yahay beri waa la fanishiya ama shaqada laga saarayo la aduu markaad shirkada wax siinaysid wax waad heli kartaa adiga faa'iido ku tahay waay beri ka bacdi markaad shaqo kale aad raadsanaysid ama shaqo kale aad gid waxaad dhahaysaa anigu shirkadaasan ka shaqeeyay intaasoo shay baan u qabtay shirkada aday ku noqonaysa suuq geen xagga shaqadaada xilaa wallahi ninkan shirkadu ka shaqeyn jiray wax weyn ayuu ka qabtay annagana wax weyn buu noo qabanay shaqo fiican siiya saas la dhahaya soo u shaqeynayay markii la gaaray 2004 runtii noloshiisa aad isbedel weyn baa ku dhacay wuxuu shaqo ka helay Google maca inuu saaxiibkiisa isla shaqeyn jireen ama isla degnaayeen wuxuu u talin jiray oo ku dhahay jiray niyaho Google ha ka shaqeyn shirkad fiican ma laakiin aakhirkii subxaanallah asagii baa shaqo ka helay shaqadii markuu ka helay waa galay 2004 marka wax weyn ayuu shirkadda ka qabtay haddana ogaan doona muhiim mar waxay ka shaqeynayeen maxaa la yiraahdaa test barka ee wax lagu baaro ama واتقنتين من زمان 2004 waxaa la isticmaali jiray internetka marka la furo marka wax la baariyo waxa la isticmaali jiray Explorer waa taqaan Windows XP waxa ku jira iyo waxa la isticmaali jiray Firefox marka Google marka waxay ayaga tawarin jireen meesha wax lagu baaro lana Google-ka la isticmaali jiray badan dadka marka wax baarayaan marka asagoo ku shaqeynaya arinta marka tatwiirinaya bahashan shariidka wax lagu baaro wuxuu yiri way anagu dadka kale u shaqeynayna leesh anagu ma aan sameysano program sida Explorer iyo Firefox oo Google ay leedahay fikradu uu qaaday yani saan ognahay asaga wuxuu jecel yahay shirkad markuu meel ka shaqeeyo inuu wax ku daro meesha wuxuu u tagay dadkii madaxda markuu u tagay wuxuu ku yiri arintii uu u bandhigay waxaan wallahi waa runta hadda bilow arintaas waxa weeye adigana ka mas'uul ah waxaad noo sameysaa program shirkadda Google gaar u ah المهم way shaqeeyeen shirkadii buu la shaqeynay 2008 ayaa la magacaabay adeega Google Chrome aan hadeer isticmaalno runtii waa adeega waa programka xawla العالم dadka ugu badan ee isticmaalaan markay maaragtay internetka wax ka baarayaan ama internetka wax kala soo degayaan programka la isticmaalo badana محرك بحث baan dhahnaa anaga af Carabi hadii la sheego محرك baxsiga ugu badan ee la isticmaalo waa Google Chrome ninkii shirkadii markuu ka shaqeeyay oo arkeen shirkadii inuu wax fiican siinayo wax fiican u gudbinayo oo shaqadiisa ku dadaalayo way dalaceen maalin kasta wax bay dalaceen ilaa laga dhigay 2013 waxaa laga dhigay ninka madaxda oo ah adeegyada ee Google bixiso طبعا adeegyada Google bixiso waa adeegyo caalami ah bal malaayiin dad ba isticmaal bal bilyan dad ba isticmaala isaga madax u ah adeegyada bixiso programada yani Google ka bixiso iyo soo u shaqeynayay 2015 Google waxay magacaabtay shirkad oo la dhaho shirkad Alphabet waxa soo hoos gala shirkadaha ay Google leedahay oo dhan bay magacaabtay oo soo saartay asagana waxa loo doortay madaxa ama mudiirka tanfiidiga ee shirkadda Google runtii ninka markuu shaqeyn jiray dadka waxay dhahay jireen ninkaas waa nin aad u wanaagsan way marka su'aal la weydiiyo wuxuu jecel yahay inuu qofkii wax badan uu siiyo dadka wax badan buu siin jiray dhiirigelin buu ahaa dadka Google ka shaqeeya marka shirkadii waxay istiriyaan meel kale inaga aadin
gacantaa la saaray, gacantay qabsadeen. waxay shirkadda Alphabet waxaa lagu siinayaa ashum baa lagaa siinaya shirkadda Alphabet oo hadiyad ahaan baa lagu siinaya. ashumka markaa la qiimeeyay intay gaareen waxa weeye waa 199 milyan oo dollar qiimaha ashumka laga siiyay shirkadda Alphabet. يعني ninkan tharwadiisa hadii la qiimeeyo waxay gaaraysaa 650 milyan oo dollar. waa ninkii basiidka ahaa ee Chennai wax ka baranayay ee reerkiisa ay u waayeen lacag uu Mareykanka ku tago. يعني haddaad aabatay dad hooyatid يعني waxbarashada wiilka xooga saara inuu hadhowdii waa nii soo noqonaysaa insha Allah markuu wax barto asagee naftiisa wax taraya reerkiisana wax waa tari doona. waa istismaar aad u weyn xagga waxbarashada. طيب dad waxay dhahayaan ninkan يعني meel wuxuu موظف shirkad buu shaqeynay ma ahan taajir. laakiin anu mid baan ii sheegaya sax way jiraan dad dhaha anagu waan ma rabno mid inaan u shaqeyno ama qof aan u shaqeyno laakiin qof walba naftiisa uu ogayaa halka ku helo. يعني qaar baa jira waxay ka helaan naftooda ama waxay ka helaan in business ka shaqeeyo. business buu furanaya oo ka shaqeynaya business uu ka najaxaya xataa haduu yahay qof aan school dhigan xoogaa xisaab iyo maaragtay xoogaa English bartay laakiin wuxuu helay naftiisa inuu business ka shaqeysto business ka istismaar ku sameeyo. kuwa kale waxaad arkaysaa shaqadooda ay aad u jecel yihiin inay shaqeystaan oo meel ay qabtaan oo maaragtay ka shaqeeyaan oo موظف noqdo oo dad u shaqeeyo leeno naftiisa wuxuu ka helay inuu xiri anigu موظفkaas aan ku fiicanahay inaan ka shaqeeyo oo waxba halka ka soo saaray istismaar fiican baan ka soo saaray sida ninkan oo kale. ninkan يعني أنا شركة هذا أنا وحن كهذا طبعا حاجة يوروبيا أمريكان كيو عالم الأول بان كهذا أنا عالم الثالث بان هاي وحوي يقف كشقالة أفرطن سنة حتى أدوك وشقي والله أنا تسهم سنين حتى سكدا وحال سنين يضحك كله شقالة كان نغنسه ولي قاعد أدو شقي ست شقالة نغنسه حتى كومسيني قال هذا لا وقف ويسود ويان مركار كانوا دجاليو وحماشة طريو نيك ديلي جرين بيسين وحرنيه adigu mar mina موظف ka dhigno kaliya wax rabina share anagana la gashay intaas sahan baan ka bixinin qofkii موظفna waa yahay meeshan oo ka shaqeynaya haddana share buu shirkadda ku leeyahay qofka waa dadaalaya wax badan buu meesha la imaanaya inuu kullama oo arbaaxda badato kullama oo asamkiisa u badnaanayso leena share baa meesha ugu jira. xataa waxaan aragnay dad sanadkii mishaharkooda sanadkii oo dhan marka isku aadiyo 12 bilood 200 milyan oo dollar bay helaan oo istismaar weyn bay u tahay shirkadaha sida Microsoft iyo meelaha. المهم ninkii shirkadii Twitter baa hadda rabtay inay ka shaqeysiiso oo ku tiri ka soo wareeg Google anaga noo imaaw intaasoo lacag baan ku siinayna intaasoo asum baa lagu siinayaa carad fiican uu diiday xirimaha Google baa rabay inuu joogo. shirkadda Microsoft aa u yeertay ku tiri mudiir tanfiidi baa rabay inaan ka dhigno waa u diiday wuxuu yiri anigu Google baan sii joogayaa ilaa hadda Google waa jooga runtii mu'tamaradaha waaweynka caalamiga uu ka qayb galaa ninkan يعني nin hindi oo basiid ah baa inta qiimo weyn loo yeelay markuu halka aaday leesh waxbarashadiisu ku dadaalay khibrad fara badan buu leeyahay hadda caalamka teknolojiya magaciisa daaman waa helisa waxyaabaha uu ku kordhiyay teknolojiyada cusub يعني waa waxyaabo cajiib ah marka يعني adigo fiiri naftaada halka ka helisid ma ganacsida mise shaqooyinkaaga way jiraan dad istismaar weyn ku sameeya xagga shaqada. لذلك qof walba asaga isoo meeshu naftiisa ka helayo laakiin daaman waxaan ii sheegayaa marka meel aad ka shaqeysid hadhihin anigu meeshan ma lihi hadhihin meeshan anigu shaqo kuma lihi biri baa waraaqdeeda la siinayaa oo meesha ka tagaya la kullama meesha wax u gudbisid oo waxyaabo cusub u soo saartid adigay ku noqonaysa CV-gaaga ay ku buuxinaysaa oo biri ka bacdi marka mesela shaqada aad ka tagtid meel kale aad aadid waa lagu weydiinaya waxa shirkadaas waxa ka shaqeynaysa 10 sano maxaad u qabatay waxa leeyahay wallahi waxaan u qabtay adeegyadaas cusub baan soo saaray oo saas waxaan wallahi ninkan waa u baahanahay baa la dhahay waa nin dadaalaya haddii aad rabtid inaad maartay ganacsato aad noqotid oo naftaada ka hesid xagga ganacsatada gal ku istismaar ganacsiga shaqadana haddii rabtid sii wad haddii rabtid inaad iska joojisidna markuu ganacsigaaga ku socdo ganacsigaaga ku fiiri qof walba marka asaga is og mar walba waxa jeceshid
u dhaqaaq ka shaqee dadaal dheeriyana bixi laanno marka aad dadaal bixisid waad heli dadaalkaaga mumkin haddeer inaad heshid mumkin bacdi sana mumkin 10 sano ka bacdi inaad heshid marka muhiim maalin maalmaha ka mid ah insha Allah waxaan ka sheekeyn doonaa sheekada guulka aad gaartay adiga hadduu Allah i gaarsiiyo insha Allah tacaala videogan haddii aad ka heshay like saar say u shaaco oo dad badan u daawadaan ee ka faa'iideystaan ninkan hindiga ee basiidka ee Google u noqday madax shirkadda Google aad ba u mahadsantihiin haddaad halkan soo gaartay waxaan dhihi lahaa u noqo videohadii channelka ku jira oo daawo wax waad ka faa'iidi doontaa insha Allah tacaala aad ba u mahadsantihiin dhageystayaal sallallahu ala sayyidina Muhammad الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته